dhaqameed aqoon-yahano ganacsato iyo haweenka ka soo jeeda 16 beelood oo degaa xaafadaha qadiimiga ah ee magaalada Boosaaso oo maanta sir jiraayad qabtay ayaa cabasho ka muujiyay heshiiska lagu wareejiyay dekedda Boosaaso waxayna u soo jeediyeen madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo shirkadda BO Porti in aan la dumin dhismayaasha qadiimiga ah ee dhinaca ku haya dekedda Boosaaso duqii hore degmada Boosaaso Khadar Xaaji Mire oo ku hadlayay magaca shacabka degan xaafadaha qadiimiga ah ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta hadii dawladdu isku daydo in ay meel mariso qorshaha lagu duminayo dhismayaasha taariikhiga ah si loo ballaariyo dekedda Boosaaso baarlamaanku hawshu naga xigsan lahaa dadweynaha waxa isku keenay hay'adii naga xigsan lahayd baa meeshii ka baxday oo lacag qaatay waxay kalibsan inaan waraaqi akhrino iska eegno iska hubino maxaanu markaa ka helay dekedda tan 336 milyan baa la gelinay baa la yiri dadkan wuxuu rabaa 336 milyan dekedda ay ku kacayso in loo ka dhiso madaxtooyada aan mareere la geeyo meel bannaan oo wadooyin leh oo deked imaaraad dhisay baanu rabnaa in loo dhiso ma doonayno dekedayada Talyaanigu nooga tagay oo 7 sano ka baxsanay oo kulliibaanay iyo laamiga Talyaanigu loo dhisay in la qisho marabno war sida marnahay kulankan waxa kale oo ka hadlay Korneel Maxamed Saciid Yuusuf Boqor Korneel Bashiir Xaaji Cali Suldaan Abshir Jibriil Nabadoon Cismaan Cabdi Saciid Nabadoon Maxamed Xuseen Maxamuud ganacsade Cabdulqaadir Nuur Isbatoore iyo siyaasiyiin kale dhammaantoodna waxa ay sheegeen in aysan dawladda ka soo horjeedin hase yeeshee ay xuquuqdooda cod ku sheegayaan waxaanu isku raacsanahay dawladdu inay dekedda ka dhisto meel bannaan oo ilaa aaga mareero oo la yiraahdo waa dekeddii imaaraadku dhisay ay magac ku yeelato tani magac kuma leh iyagu imaaraadtan magac kuma leh wax inda laga qasan karona ma dadkaani ma aha dad mucaaradnimo isu soo urursaday ma aha dad horumarka dalka ka horjeeda waxaan soo dhaweynaynaa horumarka ayraboorada wadooyinka dawladdu ay ku talaabsatay waa soo dhaweynaa si wacan baan u soo dhaweynaynaa waxaanu diidaynaa wixii aan qaban oo khasaare noogu jiro waxaan kaloo leeyahay guryahayaga lama gadi karo iyo magacayaga deynna looma qaadan karo diyaarna uma nihin raallina kama nihin waana ku dhimanaynaa waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka iyo dawladda Puntlandba inay hoos u eegto arrinka runta oo jira sida ay qabiilada 16 ay isugu soo baxeen guryahaas gorgoro kuma jiraan kama ogolin dekeddaas hadii la buuxinayo badal la buuxin karaa dhinacyadeeda laga dhisi karaa dhul ma waayin saaka inuu deked ka dhisano waxaan u sheegaynaa madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas horumar buu wadaayo horumarkaaga ha lagaga tagin haraati aan meesha ku jirin barnaamijkan aan ka hadlaynaa waxa weeye mar waa ergo marna waa afeef marna waa baq aan u jeedinayno shacabka Puntland dhammaan meel jooga ergana waxa aan u nahay wixii wax yaqaan waxay afeef u tahay dawladda xukuumadda Puntland bay afeef u tahay imaaraadka waxaan joogay muddo dheer dhismaha imaaraadku sidoo dhismayo waa joogay waxaan ku lahaan jiray shirkado waaweyn oo muqaawala markaan aniga xisaab ahaan aan xisaabteedii isu geystay horta mid isma gasho ganacsatadii Soomaaliya boqolkiiba 60 waa la soo saaray imaaraadku waa soo saareen horta boqolkiiba aan u maleynayaa 20 waxay xiran yihiin dalkiinii baan ka shaqaysanayaa oo rabaa ganacsi ka sameeyo ganacsatadiina waan xirxirayaa horta meed ka shaqeeya hadday dawladdu heshiis galayso si hadda dad badan ka dhawaajiyay waa u banaantay in heshiis gasho inay waddanka horumar mariso waa u bannaan tahay inay waddanka wax ka qabato kaabayaasha dhaqaasha waa u bannaan tahay waxyaalaha horumarka inay ka shaqeyso dawladdu waa u bannaan tahay laakiin waxa ku jira wax kasta oo qabanayso ummadda meesha degan maslaxad ma u yahay ma soo maaha ayadoo aanu jecelahay anagu Puntland hooyadeedii aanu nahay dadkii ururiyeen aanu nahay asaasayaashii Puntland aanu nahay Puntland maanta waxaanu ka filaynay raaxo madaxweyne kasta oo la saaro laakiin maanta inoogu doobar xuntaay waxa la yiri 400 sano dhulkii awoowayaashin ku dhaqnaayeen baa la burburinayaayo
tobankii bishii abriil 2017 waxaa heshiis kala saxeexday dawladda Puntland ee Soomaaliya iyo shirkadda BO Port ee laga leeyahay Dubai saldhigeeduna yahay London. heshiiskaasi oo muddo 30 sano ah lagu wareejiyay dekedda Boosaaso dhismaheeda iyo maamulkeedaba. heshiiska waxaa la sheegay in dekedda lagu maalgelinayo lacag dhan 336 milyan. heshiiskaasi waxaa ansixiyay baarlamaanka Puntland. Axmed Saciid Xasan, Axmed Shimaali, Somali Cable, Boosaaso.